maalintii ugu horeysay ee gabadha cusub dugsiga timid indhaha ardayda oo dhan ayay soo jiidatay laakiin fasalka waxaa joogay wiil lagu yaqaanay shactiro iyo dhib badnaan intii lagu jiray nasashada si ula kac ah ayuu kabaheeda ugu shubay wasakh iyadoo aan hal eray oran ayay qaaday baaldi biyo qabow ah waxayna si toos ah ugu shubtay wiilkii dhaxan ayuu istaagay biyihii ka tifqayeen markii kuraasta la kala qoray qadarku wuxuu keenay in ana iyo wiilka is ag fadhiistaan taasi waxay ka dhigtay in maalin kasta uu helo fursad uu ku dhibo wuxuu maqas ku jiray kartoonkii caanaha ee ana khalna si qarsoodi ah ayuu ugu daray maalin kale wuxuu si dhuumasho ah u bedelay jawaabaheeda imtixaanka taasoo sababtay in ana oo mar walba kaalinta koowaad geli jirtay ay ku dhacdo imtixaan markii ugu horeysay xitaa marka dugsiga laga baxo wuxuu albaabka baska istaagi jiray si uusan u ogolaan inay fuusho ana wax walba way u dulqaadanaysay qalbigeedana si aamusnaan ah ayay ugu kaydsanaysay maalin ay fasalka istaagtay si ay su'aal uga jawaabto wiilkiisi ula kac ah ayuu kursigeeda gadaal uga jiiday ilaahow qofkii magacaaga soo qoro jannada gee oo ilaahay dartiis falow isu dhaho laakiin ana hore ayay usii ogaatay xeeladiisa markaasay si degan u istaagtay isaga ayaana ku sigtay inuu dhaco intii lagu jiray nasashada wiilku wuxuu sanduuqii qalimaanteeda dul saaray sabuuradda si aysan u gaarin markii uu hoos u dhacay waxaa ku jiray silsilad yar xusuus ay ka haysatay aabbaheed geeriyooday ayaa laba qaybood u kala jabtay markan ana ma aamusin waxay wiilka ku canaanatay hadal kulul oo aan kala go' lahayn 2 daqiiqo wiilkii wuu yaabay weligiis ma arag gabar hadallo sidaas u af badan leh waxay u maleeyeen in dagaalkoodu halkaas ku dhammaaday laakiin maalin tababar kubadda kolay ah ayuu wiilku si kama ah ugu dhacay ana iyadoo u malaynaysa inuu mar kale ku kicinayo waxay ku tiri aan sharad galno haddii uu isagu guuldaraysto wuxuu xihan doonaa goono jimicsiga subaxii haddii ay iyadu guuldaraysato madaxa ayay xiiri doontaa ciyaartii way bilaabatay ana si lama filaan ah ayay u tuurtay kubad 3 dhibcood ah waxaa la ogaaday in tan iyo yaraanteedii ay aabbaheed kula tababaran jirtay dugsi ciyaareed xirfadeeduna ay ka sarrayso inta la filayay wareeggii ugu dambeeyey ana ayaa hoggaanka haysay markuu arkay guuldarro soo socota wiilku wuxuu iska dhigay inuu anqow ka dhaawacmay ana waxay tidhi ma tirinayo guuldarro ahaan laakiin isagu wuu ku adkaystay inay sii wadaan sidaas darteed waxay u wareegeen kubadda miiska markan hal dhibic ma uusan dhalin ana ayaa si buuxda uga adkaatay subaxdii xigtay ardaydii oo dhan ayaa yaabay markii wiilkii garoonka yimid isagoo goono xiran la soco barti 2